halkan waxaad ka arki kartaa Qasa diirkan gadaashiisa waxaa ku noolaan jiray 2 milyan oo qof oo ku xidhan xabsigan furan xeebtana ku dhow xuduudaha Masar sidoo kale waxaa laga arki karaa Qasa 10 kiiloomitir ayay u jirtaa balse sidoo kale waa xeebta magaalada Patria o muerte. Of your dehumanization of Arabs, what do you have to say for yourself? And this, you liar! jidka Qasa waxaa soo gaadhay Qaahira si aan ula soconno 10kii weerar ee u dambeeyay laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha ee Qaahira si toos ah ayaan ugu dhaqaaqnay ilaa xuduudka Arafaad halkaasoo indhaha adduunka ku sugaya rakaabka ciidamada badda ee u socda goobta waxaan ku sugnay waqooyiga Qaahira meel 1 saac u jirta magaalo la yiraahdo waxay kaliya 35 kiiloomitir u jirtaa xuduudda dhammaan maqaayadaha halkan waxay leeyihiin magaca Falastiin waxaan maray meelo badan oo baaritaan ah in ka badan 5 tani waa aagga ugu baaritaanada badan adduunka oo Israa'iil ka xanibtay korontada biyaha gaaska cuntada shidaalka iyo daawooyinka waxaa sidoo kale la duqeeyey iyadoo la burburiyey kumanaan oo kala duwan waxaana xoogga gacanta ku haya rag geesiyaal ah oo yar waxaa la baabiyey dhismayaal warshado iyo dad iyadoo la dilay oo la dhaawacay kumanaan haween iyo carruur ah taasoo ah muujin naxariis darro iyadoo ay ka taageerayaan dalal kale waxaa jira wax ka badan kufaanida ilbaxnimada iyo sheegashada xuquuqda aadanaha balse markii runta la gaadho waxaa ka muuqata in aadanaha ay u that deserve to be exterminated rather than being alive. The war crimes! 7 years of occupation! Behind these walls, we have 2 million people. We will not get out of it, even if a second Nakba happens. We're still alive, till now. si aan u gaadhnay iskayska Rafax waxaan marnay dhul dhan oo ah jasiiradda Sinai waxaana la joojiyey dhowr jeer oo la kormeeray kantaroolo badan ayayna soo dhaafnay halkaas ayuu iskaysku ku yaalaa ma qiyaasi kartaa in 2 milyan oo qof oo hoos ugu jira duqayn ay tahay markii ugu horreysay aan arko derbiyo sidan dhaadheer tani waa iskayska Rafax ee Masar dhinaca kale waa iskayska Falastiin waxay isku jiraan 300 mitir oo keliya 300 mitir haddii aad rabto ma gudbi kartaa maya ma suurtagalayo hadda iskaysku uu xidhan yahay tan iyo bilowgii dagaalka dhinacan mise kan kale labada kan kale Israa'iil baa maamusha Israa'iil baa gacanta ku haysa oo ayna duqeeyaan mar kasta waxay u sameeyeen aaggaas si ay noo cabsigeliyaan annagoo ah shaqaalaha gargaarka ay nagu yidhaahdeen haddii aad halkaas ka gudubtaan oo isku daydaan inaad caawisaan waan idin duqayn doonaa wiping out an entire nation, it's a textbook genocide. ma aragtaa teendhooyinkan ma aragtaa meeshaan caawa siixan doono gadaashiisa halkan koronto biyo iyo wax kasta waan haysannaa laakiin 2 tallaabo oo keliya halkan naga xiga ma jirto koronto mana jirto biyo la cabo mana jirto cunto oo intaas waxaa dheer duqaymo cirka ah qofna ma qiyaasi karo annaguba ma qiyaasi karno ma geli karno gudaha halkan ma filayo waa sidaas habeenkii oo dhan dhawaaqa duqaynta ayaa socdaa waxay duqeeyaan isbitaallada iyo dugsiyada waxba kama aysan tegin 13 maalmood oo cidhiidhi ah dhulka cirka iyo badda in ka badan 150 baabuur ayaa la diiday inay gudaha u galaan kaliya 2 baabuur ayaa geli doona waxay hadda duqeeyeen iskayska hortayada si ay digniin u siiyaan 2 baabuur inaysan hore u soo gelin waxay xidheen albaabada mar dambena ma furayaan saacadu waa 3 subaxnimo
markasta dhawaaq qarax ayaa la maqlayaa dhulka ayaa halkan gariiraya annaguna waxaan ku jirnaa bannaanka Oh Allah. Oh Allah. يزول الألم سوف نحيا Jordan, Israel, to Europe. سوف يحيا Gaza. waxay hoos tagtay xukunka Cismaaniyiinta sanadkii 1917 markii ciidamada Ingiriiska ay soo galeen kadib guuldaradii boqortooyada Cismaaniyiinta. Land in 1917, the Jews were promised a national home in Palestine by Britain's Earl of Balfour. waxayna ku jirtay maamulkii Ingiriiska ilaa 1948 markaasoo Ingiriisku ka tegay kooxihii Sionistiga ayaa isku bedelay waxaa maanta loogu yeedhay Israel. kadib kooxahani waxay fuliyeen xasuuqyo ka dhan ah dadka Falastiiniyiinta ee magaalooyinka iyo tuulooyinka Falastiin. Ku dhawaad 300,000 oo qof oo Falastiini ah ayaa barakacay kuwaasoo ka cararay Qasa. Masar ayaa markaas maamushay Qasa ilaa 1949 iyagoo la wareegay With Sinai, the West Bank and Golan. taasoo dhalisay kacdoonkii ugu horreeyay ee ka dhanka ah gumaysiga Sionistiga. isla sanadkaas waxaa la aasaasay Xamaas oo ah dhaqdhaqaaqa difaaca Islaamiga ah. Israa'iil gumaysiga ku jirta ayaa markaas si tartiib ah uga baxay Qasa sanadkii 1993 iyadoo lagu saleynayo heshiiskii Oslo. qaar ka mid ah aagga waxaa lagu wareejiyey maamulka Falastiin. gumaysigu waa inuu gebi ahaanba ka baxaa Qasa sanadkii 2005 isla markaana uu burburiyo degmooyinka la degan yahay. 2006 ayaa la qabtay doorashadii ugu horreysay ee Falastiin taasoo guul weyn u soo hooyay Xamaas. guushaas waxay kor u qaaday khilaafkii ka dhaxeeyay xisbigii ugu weynaa ee maamulka Fatah iyo Xamaas sanadkii 2007. khilaafkaas wuxuu sababay in maamulka ugu weyn laga saaro Qasa Xamaasna la wareegto dhulka oo dhan. tan iyo maalintaas Israa'iil gumaysiga ku jirta waxay saartay ciriiri buuxa oo Qasa dhulka badda iyo cirka waxayna duqeeyeen Qasa in ka badan 5 jeer 2009, 2012, 2014, 2018, 2019, and 2021. iyadoo la dilay oo la dhaawacay 10,000 oo rayid ah dumar iyo carruurba. iyadoo lagu magacaabayo cudurdaar been abuur ah waxay xoojisay ciriiriga dadka Qasa saaran waxayna si naxariis darro ah u ciqaabtay dadka Qasa. Why do we deserve this? What did we do to this? I'm just a kid. maamulka Masar ayaa jadwal u sameeyay dhaqdhaqaaqa iska Rafax dhinaca Masar ee gelitaanka iyo bixitaanka si loo galo dhulka Masar ama looga yimaado waqtiyo kala duwan iyadoo ku xidhan xaaladaha adduunka oo dhan. qaramada midoobay iyo dalalka Carabta waxay ugu baaqayeen Israa'iil in laga qaado ciriiriga Qasa oo la hirgeliyo halka laba dal si caalami ah loo aqoonsan yahay iyagoo ka digaya cawaaqibta ka dhalan karta sii wadista isla wadadii ay raaceen dowladihii Israa'iil ee soo raaca kuwaasoo ugu daran xagtirka dowladaha hadda jirta ilaa laga soo gaadhay maalin sharaf leh Oktoobar 7, 2023. dhammaan isgoysyadu way xidhan yihiin. halkaas waxaa ku yaala derbiga xuduudka oo loo yaqaan derbiga kala sooca. This is Gaza Strip right here. A waxaa surface area dhererkiisu of yahay 365 kilometers, 41 kilometers in length. More than 2 million people live in it. Their age is under 14 years old, on average. Kids. magaalooyinka ugu muhiimsan Gaza, Khan Yunis, Deir al-Balah, and Rafah. Qasa Strip waxaa ku yaal 8 xero qaxooti oo Falastiiniyiin ah kuwaasoo la barakiciyey sanadkii 1948 maalintii masiibada waxayna matalaan ka badan dadka Qasa. xerooyinka ugu waaweyn waa jabaaliyaasha iyo Nusayrat. The Iron Dome and the snipers on its towers. This is my sister. She had a wedding? Her wedding, yes. When? Her wedding should have been on October 19th. Her husband is stuck in Cairo. So the bride is inside? Yes, she is. She couldn't get out because of the crossing's closure. It didn't open. maalintii xigtay dadku waxay isugu yimaadeen sababtoo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa yimid soo khudbad u jeediyo. 70 years of war crime! Behind these walls, we have two. geerkan gadaashiisa waxaa ku noolaan jiray 2 milyan oo qof oo si xun u dhiban
ma jiro biyo, mana jiraan cunto iyo daaweyn, sidoo kalena ma jiro shidaal. Waxay qaramada midoobay u ogolaatay 7 sano oo gumaysi ah. You should be so ashamed of yourself. You are a liar, you have blood on your hands, and you should be so ashamed of yourself. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? isagu waa isla qofkii sheegay kadib markii uu arko xaaladda in weerarka Xamaas uusan ahayn mid aan sabab lahayn. Waxaa muhiim ah in sidoo kale la aqoonsado in weerarada Xamaas aysan ka dhicin meel madhan. Waxay arkeen dhulkooda oo si tartiib ah lagu gumaado degmooyin ku dhaca rabshado. Sanadkii 1948 xagjiriinta Yuhuuddu waxay xasuuqeen ku dhawaad 200 oo reer miyiga Carbeed ah oo ay ku jiraan carruur. Dhaqaalahooda waa la cirib tiray, dadkooda waa la barakiciyey, guryahoodana waa la burburiyey. Agagaarka iskayska Rafax waxaa ku yaal magaalo la yidhaahdo Sheekh Said. Xeebteeda waxaad ka arki kartaa dhismayaasha ugu adkaysiga badan ee Qasa. 2 tallaabo oo keliya 20 kiiloomitir ay ka fog halkan ayaa Qasa ku taal. xataa dhismayaasha halkan ka muuqda waad arki kartaa. Tani ma ahayn wax sanadkan keliya dhacay, oo qiyaasi kartaa inaysan badda ka gudbi karin. nidaamka caafimaadka ayaa gebi ahaanba burburay halkaas, iyadoo baabuuro badan ay bannaanka taagan yihiin toddobaadyo sugaya halkaasoo nidaamka caafimaadka ee Qasa la burburiyey. Hay'adda Siyoonistiga si kastaba ahaatee waxay ogolaatay keliya 20 baabuur maalinkii, waxayna mamnuucday gelitaanka gaaska ama naaftada, kuwaasoo isbitaalladu si weyn ugu baahan yihiin. markasta waan duuweynaa, waxaa hadda maqlaynaa qarax. hadda Qasa ayaa la duqaynayaa. waqtigan aan hadlayna ugu yaraan 100 baabuur maalinka ayaa ku filnaan lahaa, laakiin Qasa gacanta iyo lugta qof ayaa laga jaray. waxaa keliya aan siin karno waa bacaha meydka ee hooyadaas, aabihii iyo walaashii. waxaan go'aansanay inaan eegno Falastiiniyiinta ku xayran dhinaca Masar, Al-Arish, caasimadda Siinay. intooda badan waxay ku sugan yihiin Al-Arish, 30 kiiloomitir ayay jirtaa iskuyska. Tani waa meesha ugu horreysa ee aad soo marto markaad ka imanayso Qasa. waxaad ogaan doontaa in lahjadoodu ay ka duwan tahay Masaarida intiisa kale. lahjadoodu waxay ku dhowdahay tan Urdun iyo Falastiin. We are generally Sinai Bedouins. guud ahaan waxaan nahay reer guuraa Siinay. waa arrin ku jirta dhiigga dadka Siinay. xataa cuntooyinka Siinay waxay la mid yihiin kuwa Falastiin. Also musakhan. Also the culture of eating thyme and olive oil. This is coffee from dadka Siinay iyo guud ahaan Masar waxay taageeraan dadka Qasa. Welcome to Al-Arish. Welcome to Al-Arish. Welcome to Al-Arish. There's a family stuck here. marka Falastiiniyiintu yimaadaan Al-Arish, waxay dareemaan sidii inay joogaan Qasa. Of course, my family, my children and grandchildren. I hope they're okay. All praise to Allah. Today they bombed our neighbors, only 50 meters away from us. If they bombed churches and mosques and even bakeries, one goes to get a loaf of bread, they find that the bakery is bombed. Where is a safe place to go to? We rented an apartment and we're staying in El Arish. Where do you live in Gaza? I live in Zaytun, in the middle of Gaza. Was it affected? It's all wiped out. No country can receive you? No. We can't get out of Egypt. But why the Ukrainians during the war can go elsewhere? All countries are open to foreigners. Palestinians are besieged. Gaza is only 40 kilometers wide. Who of your relatives are there now? All of our family, our children. Do you check up on them? Yes, every day. My sons are all there. Falastiiniyiintu ha ku noolaadaan Qasa ama Al-Arish. adeeradeeda iyo qaraabadeeda waa dad isku wada xidhan. ma jiro derbi naga dhexeeya inta badan. dadka halkan iyo halkaas waa isku mid. Most people here and there are one. waxaan rabnaa inaan guryahayaga ku noqonno, laakiin waana laga xidhay, waana la duqeeyey. No problem. It's not a problem. We want to be with them and die together rather than this psychological struggle here. We don't know if they are alive or dead, if they ate or had any water. waxay u samreen ciqaabta wadajirka ah.
micnaheedu waa in dadka Qasa hadda la ciqaabayo laakiin waad ogtahay inay jiraan qaxooti badan dad badan oo rayida rag iyo dumar iyo caruur ku nool xero qaxooti ah. Leave my house and live in a tent or go back home. I'd rather die in my home than live in a tent. It's a displacement plan. There's no alternative to Palestine. We've got no choice but to resist the occupation. They can't get rid of Gaza unless they wipe it all off. Their patience. Collective punishment means the people of Gaza now are punished. But you know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women, and children in that refugee camp as well, right? magacay waa Muhtaab, kan waa Wisaam, kan waa Abu. aniga iyo dhammaan carruurta Qasa si nabad ah ayaan ugu nooleen iyo in Qudus xor noqoto iyo in Qasa guulaysato tani waa riyadayda haddii Ilaahay idmo. 2